runtii waad karaamaysantihiin taariikh dheer ayay culimadeenu leeyihiin waana uga mahadcelinaynaa intay dalkan ku soo ilaalinayeen ayagoon waxba lagu siinin saan sheegay oo sheekhu kitaabka uu akhriyo mushahar ma qaato ilaahay dartiisa uu akhriyaa shacabkiisaasuu la nool yahay shacabkiisa la nool yahay marka taas runtii muhiim bay ahayd annagu waxaan rabnaa inay dawladdeenu diinta ayadu gacanta ku hayso waxaan rabnaa inaan ka ilaalino diinta ilaan qofka muslimka ah muxuu yahay shaqadiisu hadduu xaakim yahay xiraasatu diin siyaasatu dunya wa xiraasatu diin waaye marka diinta inaan ilaalino waajib min awjab alwaajibaat bay ka mid tahay yaan ka ilaalinaynaa number 1 hadda maanta khawaarijtaan ka ilaalinaynaa marka caqiidadii ummadda in la ilaaliyo waa waajib yaa ku soo duulay khawaarij baa ku soo duushay diintii ummadda khawaarij baa ku soo duushay dadkeenni yaa ku soo duulay oo baabi'inaya khawaarij baa ku soo duushay dalkeenni yaa ku soo duulay khawaarij baa ku soo duushay haddii aad rabto marka inaad diyaariso ummad wax iska tarta oo wax iska celisa oo micno yeelata marka ugu horeysa waxaa laga bilaabaa gudaheeda in la sifeeyo la hagaajiyo in la mideeyo caqiidadeeda la saxo ayada la isku toosiyo markaas kadib bay ummadaasi wax noqotaa ay wax iska celisaa intay khawaarijtu intay joogaan dadkeennu iyo dalkeennu micno ma yeelanayaan diinteennuna halis bay ku jirtaa marka culimada sharafta leh dareenkaas aad xambaarsan tihiin waa dareen saxa waa midka laydinku yimid ee idiin sheegay waxaan rabnaa marka in ay culimadeennu hoggaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hoggaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hoggaaminayo inaad culimada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta ayaga weeye annagu haddii ay dawladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalanay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalanay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimada iyo masaajidkay u taallaa marka habeen dhaweydna halkan aan ka sheegay ma ila habboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habboonayn ama cabsi ha ii geyso ama dareen la'aan aanan dareensanaynba arrintaasi ha ii geysee arrintaasi muraajacay u baahan tahay arrintaas waxay u baahan tahay culimadeenu inay ka hadlaan oo culimada saas samaynaysa la hadlaan maalin dhaweyd waxaan u soo jeediyey culimadaasi hadday waxoogaa cabsidu ay ku yar badan tahay khayr allah siiyee kuwa aan cabsanaynin oo ayagu ilaahay dartiis furimaha u taagan oo khudaba a jirtay ha u banneeyaan ha ku soo dhoweeyaan kuwaas oo halkaan fadhiya ayagaa dadka u khudbadayn ayagaana ilaahay aaminsan markuu ilaahay ugu talagalo inay dhimanayaan marka haddii uu sheekhu cabsado anigu maxaad u cabsatay odhan maayo laakiin ku geesiyaa joogee ha u banneeyo ha u khudbadeeyo dadka asaguna u sheego intaas mar kale waan ku soo celinayaa manaba dhaafayno waa inaan ku celcelinaa runtii culimadeennana ayagoo mahadsan dareenkaas inaanu muujinaa horaan u sheegay culimada waxaan intaa ugu sheegayo waxaa weeye culimadu ulil amrigay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu arasuula wa ulil amri minkum ulil amriga maadaamay ka mid yihiin ulil amrigu mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyaddaas inuu qaadaa laga rabaa inuu fulay noqdo mas-uuliyaddiisa ka cabsadana sax maaha mas-uuliyadda aad qaadaysana waxay leedahay sacrifice tadxiya wax la dhaho inaad wax xurtay leedahay naftaa ugu horaysa marka baashaan
haddii ba la sheegay qofkay nimankaasi dilaan inuu janno galayo kii dilaana janno inuu galayo meel ka fiican ay ku baxaysaan uma garanayo marka cabsida aan iska saarno ummadeennana cabsida aan ka saarno min awjab alwaajibaat way maanta in shabaab lala diriro oo khawaarijta dalka laga saaro aad iyo aad ayaa runtii arrintaas ay muhiim u tahay